shir u dhexeeya hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO iyo 22 dal oo ay Soomaaliya ka mid tahay ayaa lagu qabtay caasimadda Pakistan ee Islamabad. Dowladda Pakistan oo shirkan martigelisay 25 sano kadib ayaa sheegtay inay ku faraxsan tahay martigelinta shirkan iyadoo guud ahaan la adkeeyay ammaanka gaar ahaan goobta uu ka dhacay shirku. Shirkan ayaa looga hadlay arrimo la xiriira dhibaatooyinka caafimaadka, horumarka caafimaadka, siyaasadda iyo sidoo kale hiigsiga dhanka caafimaadka ee ay wadamadan doonayaan inay gaaraan mustaqbalka. Soomaaliya waxa uu uga qayb galay shirkan wafdi ay hogaaminaysay wasiirka caafimaadka Soomaaliya Marwo Fawziya Abikar Nuur, waxaana intii uu socday shirkan wafdiga Soomaaliya ay kulamo gaar ah la qaateen qaar ka mid ah madaxdii ka qayb gashay shirka iyagoo kala hadlay xaaladda caafimaadka ee Soomaaliya. Shirkan oo socday muddo 3 maalmood ah ayaa gebi ahaanba diiradda lagu saaray arrimaha caafimaadka, waxaana ii suurtowday inaan waraysi la yeesho wasiirka caafimaadka Soomaaliya Marwo Fawziya Abikar anoo ugu horreyn weydiiyey tafaasiil ku saabsan shirka. Shirkan wuxuu dhacaa sanad walba waxaa lagu qabtaa wadamada ay ku bahaysteen gobolka ee Emro la yiraaha ee Eastern Mediterranean region-ka oo Soomaaliya ay ka mid tahay. waa 22 dal oo ay ka mid tahay Soomaaliya, Djibouti, wadamada Carabta ee muslimiinka ah. sanad walba la qabtaa, marba wadana lagu qabtaa. Soomaaliya waxaan uga soo qayb galnay aniga wafdiga hogaaminaya 3 Dr. Cabdi Cawad, Dr. Cabdinaasir Ciise iyo Dr. Cabdiweli Maxamed. waxaan ku ahayn 4. shirkan sidaa sheegtay 22 dal iyo WHO ama hay'adda caafimaadka adduunka ayuu u dhaxeeyaa maanta ayaana la soo gabagabeeyay. maxaan ka ogaan karnaa waxyaabihii looga hadlay shirkan ama waxyaabihii ka soo baxay guntiga gabagabadii shirkan? Duraan shirka waxaa mar walba laga hadlaa sanad walba waxyaalihii soo qabsoomay sanadihii hore dhacay, waxyaalaha emergency-ga oo soo baxay, qorshayaashii lagu socon lahaa sanadka soo socda iyo waxyaalaha muhiimka diiradda la saarayo oo arrimaha caafimaadka. waxyaalaha laga hadlay waxaa ka mid ahaa cudurradii kansarka oo sii batay, caafimaadka dhallaanka, caafimaadka bay'ada iyo environmentiga qalaad lagu yiraaho. waxaa la sameeyay qaraaro iyo waxaa ka soo baxay go'aano loo qaatay iyo kuwii ka soo baxay shirki caalamiga ah oo WHO oo May la qabtay, Geneva lagu qabtay. waxyaalihii annaga aan ka qaadanay gobol ahaan nooga soo aaday waxyaalaha ka qabsoomi doona sanadaha soo socda. waxaa shirka markii ugu horeysay ka qayb galay oo ku cusbaal hay'adda WHO ninka regionkeena u qaabilsan Dr. Maxamuud Fikri oo isaga ku cusbaayo sanadkan la doortay bilaabay shaqada February 2017 iyo Dr. Tedros Adhanom isagana la doortay May oo ku cusbaa. labada shirka way joogeen. shirka muhiimadiisa waxaa sii weyneeyo kor u sii qaaday in madaxweynihii dalka Pakistan uu ka qayb galay, wufuudi ay la kulmeen prime ministerka wadankan iyo dawladda Pakistan oo waqti kadib fursad u heshay in agtooda shirka lagu qabto. qaraaradii ka soo baxay waa la faafiyay, waxaa la dejiyay istaraatiijiyo cusub, waxaa la soo bandhigay cilmi baaris badan oo ku aadan cudurrada iyo meelaha muhiimadda in la saaro ay tahay. Soomaaliya waxay fursad u heshay sanadkan inay ku faanto in 3 sano ay joojisay cudurkii polio ee motivation loo yaqaano polio oo aysan ku guuleysanin wadamo badan oo wadankan Pakistan, Afghanistan iyo Nigeria oo kale ay ka mid tahay weli ku guuleysan waayeen. Soomaaliya iyadoo dhibka la ogyahay uu haysto, dhaqaalaha caafimaadka lagu bixiyo uu yar yahay, meelo badan oo aan la geli karin nabadgelyo awgeed ay jiraan, haddana waxaan ku guuleysanay in hal xaalad oo cudurka dabaysha ah ilaa 3 sano aan la helin. midda kale oo aan aad ugu faanaa waxay ahayd waxaa sanadkan wadanka aad u faraq kulul ugu qabtay cudurkii shuban biyoodka ama cholera la yiraaha. Soomaaliya waxay ku guuleysatay in ay joojiso cudurka iyadoo awoodsatay dhinac walba oo bulshada iyo dad muwaadiniin ahayo naftooda u tabarucay. waxaa la sameeyay tiiman badan oo la tababar loo sameeyay oo loo diray meelaha aan la geli karin. marka sharaf weyn ahayd, waa wax arin looga hadlay shirka kor loo qaaday oo regional director-ka ninka agaasimaha ka Maxamuud Fikri uu runtii ku faanay.
waa uu noo yimid shirkii boolio ciribtirkiisa ee dabaysha marka Soomaaliya waxay u ahayd iyadoo xaaladaha dadka ugu liita ku jirta dhaqaale ahaan iyo wadankii oo dhibaato badan systemkii caafimaadka hoos u dhacay in haddana guulahaas aan soo hoyno waqti yar gudaheeda marka sharaf weyn inoo ahayd waxaan rajaynaynaa inaan hore u soconno haddii Alle idmo shirkan oo sanadla ah ayaa sanadkan waxa uu ahaa mid muhiimad gaar ah u leh Soomaaliya kadib markii dowladda Pakistan ay guddoonsisay bil sharaf ay bixiso midda ugu sarreysa Dr. Khaliif Bile oo ah aqoon-yahan Soomaaliyeed Khaliif Bile oo ahaa madaxii jaamacaddii ummadda qaybteeda caafimaadka ayaa ka soo shaqeeyay hay'adda caafimaadka adduunka ee Soomaaliya isagoo ugu dambeyn noqday madaxa hay'adda caafimaadka adduunka ee wadamada Iran iyo Pakistan ku dhawaad 11 sano oo uu hay'adda caafimaadka adduunka wakiil uga ahaa Pakistan ayaa Dr. Bile gacan ka geystay tayeynta iyo qalabaynta isbitaalada Pakistan tababarida kumanaan isugu jiray dhakhaatiir iyo kalkaaliyaal caafimaad joojinta ka ganacsiga xubnaha bini'aadanka waxaana dowladda Pakistan sheegtay inaysan hilmaami doonin doorkii uu ciyaaray Dr. Bile gaar ahaan xilligii lagu guda jiray dhulgariirkii Pakistan kaasoo galaaftay nolosha dad gaaraya 73,000 oo qof bila sharafta ay dowladda Pakistan guddoonsisay Dr. Bile ayaa lagu magacaabaa Satara Imtiyaaz waana bilada ay bixiso Pakistan midda ugu sarreysa wuxuuna ku mutaystay abaalmarintan hawlkarnimo daacadnimo dadnimo xilkasnimo iyo dulqaad waa sida ay sheegtay dowladda Pakistan intii aan la guddoonsin abaalmarinta ayaa goobta lagu soo bandhigay barnaamij kooban oo maqal iyo muuqaal ah kaasoo muujinayay waxqabadkiisii shaqo ee hay'adda caafimaadka adduunka ee Pakistan iyo sidoo kale dadaalkii uu ku bixiyay badbaadinta dadka iyo tayeynta caafimaadka gabagabadii shirka u dhaxeeyay 22 dal oo adduunka iyo hay'adda caafimaadka adduunka ayaa bilad sharafta la guddoonsiiyay Dr. Bile waxaana guddoonsiisay wasiirka caafimaadka ee Pakistan Saira Afzal iyadoo sidoo kale goobta ay ku sugnaayeen xubno sarsare oo ka socday dowladda Pakistan Dr. Maxamuud Fikri oo qaybsanihii guud ee hay'adda caafimaadka adduunka 22 dal oo adduunka wafdi ay hogaaminaysay wasiirka caafimaadka Soomaaliya Marwo Fawziya Abikar iyo sidoo kale safiirka Soomaaliya ee Pakistan Marwo Khadija Maxamed Al-Maqsumi gunaanadkii shirka ayaan waraysi kooban la yeeshay Dr. Bile waxaana ugu horeyn weydiiyay bal waxa ay ku saabsan tahay biladan marka hore aad baad maasan tahay marka xiga biladan maxay ay dowladda Pakistan siisay waxay u dhigan tahay in ay aqoonsan yihiin hawlkarnimada aan ka sameeyay dalkan dadii aan joogay runtii aad baan ugu mahadnayaa
in muxuu hawlihii aanu ka qabanay hay'adda caafimaadka adduunka oo markaa xafiiskeeda muxuu Pakistan anigu aan madaxda u ahaa muxuu ay aad iyo aad muxuu u daneeyeen oo muxuu ay aad iyo aad uga mahad celiyeen arrimaha waxaa ka mid ahaa arrimo muxuu badbaadinta hawlaha degdega ah waddankan waxa ka dhacay dhul gariir baa ka dhacay ilaa 3 milyan oo qof ay ku leewaayeen ku iskuul waayeen ku muxuu caafimaad waayeen arrinta muxuu waxaanu ka qabanay waxaanu ahayn dadkii ka qayb galay hay'addii ka qayb gashay oo muujisay dadaal aad iyo aad u weyn oo u gurmatay dadkii muxuu ahaa barakacayaasha oo dhibaatadu ka soo gaadhay arrimaha waxaanu ka shaqeynay oo kale arrimaha barnaamijyada caafimaadka waddankan waagi hore caafimaadku wuxuu ku ekaa keliya xarumaha waaweyn oo caafimaadka tuulooyinka iyo deegaamada hoose ma lahayn barnaamijyo caafimaad marka waxaanu abuurnay barnaamij caafimaad oo muxuu gaadhaya tuulooyinka waddankan waddan weyn weeye ilaa 200 oo milyan kor u dhaafaya marka muxuu tuulooyinkaas si loo gaarsiiyo waxaanu tababaray gabdho muxuu dhaqanka muxuu la wadaaga bulshadooda guryaha geli kara muxuu tababar u sameyn kara hooyooyinka iyo carruurta daaweyn kara ilaa 100,000 oo gabdhood baan u tababarnay waddanka oo maanta ka shaqeeya tuulooyin kala duwan markii laga eego muxuu waddankan ilaa muxuu buurihiisa badihiisa deegaamadiisa muxuu beeleed meel kasta muxuu ka shaqeeya waxaa kale oo aan aad iyo aad uga qabanay waxa ka mid ahaa waddankan waxa aad iyo aad ugu badnaa xanuunkan cagaashuga oo dhibaatooyin xoog leh u keenay iyadana barnaamij baan u sameynay waa hirgelinay marka muxuu waxay ahayd taasi in arrimaha muxuu aad iyo aad loogu dadaalo waxa kale oo ka mid ahaa waddankan muxuu ahaa meelaha keliyaha laga iibsado wadadku muxuu markay keliyaha ay keliyu ka fadhiistaan ay ganacsi u yimaadaan oo qof kale keli looga bixiyo dabadna lacag halka qofka lacag loogu bedelo arrintaa waxaanu ku dadaalay maadaama ay tahay arrin aan insaani ahayn in la sameeyo qaanuunka aad iyo aad baan anugu ka mid ahaa dadkii u hawlgalay waxaa la sameeyey qaanuun mamnuucaya in jirka bani aadamka lacag lagu bixiyo lagu iibsado taasaa waxay keentay markaa in nidaamka keliya bixintu uu noqdo keliya mid deeq ku yimaada aan iibsi iyo ganacsi ku iman marka barnaamijyo badan oo noocaas kale ah ayaanu ka hirgelinay Pakistan waxaan aad ugu faraxsanahay in arrimahaasi caafimaadka waddanka ay kaalin weyn ka galeen waxaa kale oo maanta isla shirka guddoonsiiyey bilad sharaf hay'adda caafimaadka adduunka lafteeda oo guddoomiyaha ama agaasimaha gobolku uu isaguna ka mahad celiyey hawshii aan magacooda ku qabtay oo ugu gudbiyey dadweynaha Pakistan biladii ugu horeysay oo aad guddoonto Pakistan ma ahan biladan bilada badan ama ha noqoto xagga hay'adda caafimaadka adduunka ama xagga dawladda Pakistan ayaa lagu guddoonsiyey laakiin biladan waa tii ugu dheeray tii ugu sareysay ayaa la isdhihi karaa Dr. Bile dalkii Soomaaliya muddo ayaad ka soo shaqeynaysay Pakistanna maanta waxay bilad sharafta ku siisay waa hawlkarnimada iyo dadaalka aad muujisay wax tabarucaad dalkii Soomaaliya horay ma uga geysatay ilaa inta ka soo tagtay hadda se ma ka geysatay dalka Soomaaliya oo dhulkeeni hooyo isaga abaal looma sheegan karo abaal inuu wuxuuna tagay ayaa ka weyn wax kasta oo aad ka qabatid waxaan ka mid ahaa macallimiinta jaamacadda caafimaadka soo kiciyey dhalinyaro badan oo maanta dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba ka shaqeysa waxyaalaha hadda intii sanadii dambe burburkii dabadeed waxaan aad iyo aad isugu dayay inaan la shaqeeyo wasaaradda caafimaadka federaalka ah xamar dhexeeda inaan la shaqeeyo kuwa gobolada deegaamada kala duwan oo aan kala talino barnaamijyo horumarin caafimaad ha noqoto siyaasadda caafimaadka ha noqoto xirfadlayaasha caafimaadka sidii loo kobcin lahaa oo tababarkooda loo hagaajin lahaa ha noqoto sidii loo sameyn lahaa barnaamij caafimaad ee tuulooyinka gaadha waxyaalaha aan ka shaqeynay wax ka mid ahaa inaan kasoo kaxeeyey wafdi Soomaaliya ka socda deegaamada dalka oo dhan oo aan keenay Pakistan 3 sano ka hor oo markaa aan tusnay barnaamijkii caafimaadka tuulooyinka halka laga sameeyey dabeedna laga sameeyey barnaamij la mid ah
Soomaaliya oo hadda lagu magacaabo Marwada Caafimaadka hase yeeshee muxuu ahaay barnaamijkaasi weli ma kobcin ma ballaaran waxaan filayaa in muxuu ahaay wasaaradda caafimaadka iyo muxuu ahaay dowlad goboleedyada Soomaaliyeed ay dareemaan in deegaamada Soomaaliyeed ay xaq ugu leeyihiin in caafimaadkooda wax laga qabto in loo gudbiyo muxuu ahaay adeeg wanaagsan waxyaalaha aan muxuu ahaay kala shaqeeyo wasaaradda caafimaadka heer muxuu ahaay federaal iyo heer muxuu ahaay state labadaba waxay ka mid yihiin sidii aan caafimaadka Soomaaliya dib ugu yegleeli lahayn dib loo dhisi lahaa dib muxuu ahaay barakicii ku dhacay iyo burburka ku dhacay looga soo muxuu ahaay noqon lahaa oo waddanka muxuu ahaay dalkeena dadaal cusub iyo muxuu ahaay loo sameeyo oo si looguna sameeyo si ay ku jirto midnimo ku jirto hagar la'aan muxuu ahaay maxaa yeelay inanka Soomaaliyeed ama gabadha Soomaaliyeed muxuu ahaay galbeedka Soomaaliya iyo bariga Soomaaliya iyo koonfurta Soomaaliya joogta waa isku xuquuq waxay leeyihiin in muxuu ahaay dad angal u leeyihiin oo dowladaha Soomaaliya iyo maamulada kala duwan xaq u leeyihiin inay dib u dhisaan oo muxuu ahaay daryeelaan ama ha noqoto carruur ha noqoto ama hooyo ha noqote ugu dambeyntii Dr. Bile sida dowladda Pakistan ay kuugu mahad celisay abaalmarintan ay kuu siisay qaar badan oo kamid ah ardayda Soomaaliyeed ee wax ka baratay Pakistan iyo kuwa haatan wax ka barta Pakistan ayaa ammaan badan iyo sharaf ku soo jeedinaya dad badan oo Soomaaliyeed oo wax bartay dunida dacaladeeda ku nool ayaa jira ama dhakhaatiir ha noqdeen ama cilmiga noocyadiisa kala ha barteen kalmadda ugu dambaysa oo guud ahaan dadka Soomaaliyeed ee wax bartay ama kuwa haatan wax baranaya aad leedahay maxay marka u horeysa muxuu ahaay dhalinyarada Soomaaliyeed ee joogta qurbada ee wax barata waxay xaq u leeyihiin in la siiyo muxuu ahaay daryeel in la siiyo taageero in lala dadaalo in aynu ka ahaano muxuu ahaay ookiyaalo madow ka gashanno dareemada qabiilka iyo wixii la socdo dhan oo dadku ay muxuu ahaay si siman oo wanaagsan aad muxuu ahaay ugu adeegtid muxuu ahaay waxaan filayaa inay habboon tahay iyaguna inay sidaas oo kale yeelaan oo muxuu ahaay cudurkii ku dhacay Soomaaliya ayaan muxuu ahaay ay ka bogsidaan inta kuwa kalena ka bogsiyaan maxaa yeelay qofka muxuu ahaay dhibaatada aan ka cabanno waxaa ka bogsiin kara dareenkaaga ficilkaaga aragtida ay kaa qabaan dadka ayaa muxuu ahaay ku tilmaami kara adigu tilmaan gaara ma samaysan kartid marka waxaan muxuu ahaay rajaynayaa in aqoonyahanku ay maanta dib u dhiska Soomaaliya ay ka qayb galaan iyagoo aan eegayn muxuu ahaay qofka waxa uu ka yimi ma gabadh baa mise waa wiil xaggee degan yahay aan la eegayn in muxuu ahaay dadaalka loo muujiyo waana dareenka aan isku daynay inaan muxuu ahaay fidino oo muxuu ahaay ookiyaalamadooda ka gashanno waxyaalaha muxuu ahaay mujtamaceena cadowga ku ah ama dhaliilka u keenaya intaasi kadib safaaradda Soomaaliya ee Islamabad ayaa casho sharafeed u sameysay Dr. Bile iyo wafdigii ka socday Soomaaliya waxaana safiiradda Soomaaliya ee dalka Pakistan Marwa Khadija Al-Maqsumi ii sheegtay in ka safiir ahaan ay aad ugu faraxsan tahay biladda la guddoonsiiyay Dr. Bile iyadoo sidoo kale sheegtay in Khaliif Bile uu magac iyo sumcad u soo hoyiyay guud ahaan dalka iyo dadka Soomaaliyeed bismillaahir rahmaanir rahiim fadlan waa mahadsan tahay kasoo qaybgalka maanta kasoo qayb gashay casho sharafeedka loo sameeyay doctorka Khaliif Bile doctor Khaliif Bile haddii ka sheekeeyo qisooyinkiisii waxay noqonay qiso aad u dheer qof waxaa waaye doctorka oo aad u weyn kasoo qabtay dalka Soomaaliya iyo dalka Pakistan gaar ahaan laba mar kusoo noqday dalka Pakistan kasoo shaqeeyay oo waxqabad aad u weyn u geystay aad iyo aad horta sharaf noo tahay inuu Dr. Bile u yahay qof Soomaaliyeed waa guul u soo hooyay ummadda Soomaaliyeed dhammaan anigoo matalaya dalka Soomaaliya sharaf weyn bay ii tahay inaan ka qayb galo guddoonta bilada maanta la guddoonsiiyey maantana waxaa u sameynay casho sharafeed inuu guushaas u gaaray anakan aad ugu faraxsanahay Dr. Bile sidoo kalena safaarad ahaan waxaa guddoonsiiyey sharafeed oo ku mahadcelinayno waajibaadka iyo sida uu ummadda Soomaaliyeed Soomaaliya ha ahaato meel walba joogaan siduu qayb weyn ugu gaarsiisay dhinaca waxbarashada iyo dhinaca caafimaadka Dr. Bile aad iyo aad ummadda Soomaaliyeed aad wuxuu ugu leeyahay qiimo iyo sharaf weyn khaasatan dalka Pakistan community-ga gaar ahaan jaaliyadda dalka Pakistan oo aad u soo dhaweysay waxyaalo badan aad u tiro badan oo u qabtay marka Dr. Bile waa qof oo weligiisii dadka Soomaaliyeed
dowlad ha ahaato jaaliyadda meel walba soomaaliya joogaan waa qof oo mar walba la xasuusanayo wanaaguu sameeyey taasna anakan sharaf bay noo tahay inaan kasoo dhaweyno qaybtan dowladnimada iyo soomaalinimada uu yahay inaan ku faraxsanahay oo guul ay noo tahay marka aad iyo aad uu u mahadsan yahay sidaas darteed ugu mahadcelinaynaa doctor bele ilaahayna waxaa u rajeynaynaa isaga iyo reerkiisii guul iyo caafimaad iyo mustaqbal wanaagsan insha allah ugu dambeyntii dr khaliif bila ayaa kulan la qaatay qaar ka mid ah ardayda soomaaliyeed ee wax ka barata jaamacadaha kala duwan ee dalka Pakistan isagoo kala hadlay doorka aqoonyahanka Soomaaliyeed ee dibadhiska dalka wuxuuna sheegay in ardayda Soomaaliyeed looga baahan yahay in ay ka doodaan waxna iska weydiiyaan xaaladaha dalka inta ay ku guda jiraan waxbarashadooda dr bile waxa uu caan ku ahaa caawinta ardayda Soomaaliyeed intuu ka shaqeynayay dalkan wuxuuna arday badan oo Soomaaliyeed Pakistan uga soo dhameeyay tababaro kala duwan si ay u helaan kalsooni iyo isku filnaansho marka ay dib ugu laabtaan Soomaaliya sidoo kale wuxuu dawladda Pakistan ka soo dhameeyay in Soomaaliya sanad walba la siiyo deeq waxbarasho gaar ahaan barashada cilmiga indhaha iyadoo maanta ay jiraan arday badan oo Soomaaliyeed kuwaas oo bartay cilmiga indhaha halka kuwa hore u dhameeyay ay haatan u adeegayaan dalka iyo dadka Soomaaliyeed kulankan uu la qaatay ardayda oo ay ku weheliyeen xogayaha koobaad ee safaaradda Soomaalida ee Islamabad Ali Sheekh Cabdullaahi iyo Sheekh Cabdisalaan Sheekh Sheene oo ka mid ah waxgaradka magaalada ayuu uga hadlay waajibaadka saaran aqoonyahanka Soomaaliyeed iyo sida mar walba looga baahan yahay inuu ku baraarugsanaado xaaladda dalka waa maxay aqoonyahanka wax laga sugayaa aqoonyahanka waxa laga sugayaa in dhibaatooyinka waddanka uu fahmo ku sameeyo taxliil si uu aad u fahmo wax ka qabto arrintaas waxay u baahan tahay marka in aad culisid talooyin inaad daraasid dhibaatooyinka inaad idinkoo joogo gudaha ama dibadda waddanka maxay aad awoodda analyska samaysaan marna mawduuc ku saabsan Soomaaliya dhibaatooyinka haysta ama noqdo kuwa caafimaad waxbarasho kuwa bulsho kuwa nabadgelyo kuwa deegaan intay isu timaadeen ma ka doodeen ma dhacday marka waxay maxay xilkaas waa maxay waa xil aqoonyahan weyn haddii inta aad dibadda joogtaan oo maxay chance ka haystaan idaan maxay ka shilin oo ururadiina iyo maxay guddiyada dhalinyarada ay ka hadleen oo taxliil wanaagsan sameyn hadda uu idinkoon bislayn waa ninkii lahaa waxaan kala kulmaan waxay noo yimaadaan baad maxay wax ka oranaya ardayda Soomaaliyeed ee ka qayb galay kulanka ayaa Dr. Bilo weydiiyay su'aalo kala duwan waxaana ugu dambeyntii la isla gartay in loo baahan yahay in aqoon-yahaniinta Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ay muhiim tahay in ay u midoobaan maslaxadda dalka iyo dadka si looga baxo dhibaatada dalkeena daashatay